شيخ شريف
maaragtay banaayahay waxaan leenahay aynu yimaasano aynu isfahano waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay ka baxaan tiiraayada qabiilka intuu inoo geysay lagana tago oo hore loo socdo waxaan rajaynayaa dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed shaqeyn baa idin sheegaya inkastoo ay gabadhaaga yahay gabadha Soomaaliyeed oo waxay soo qaxaysay niman sawirka sameeyay sawirka soo garanaysaan gabadhii waxay tagtay magaaladii ay islahayd gobolkii ay ka timi gabadhii markay gobolkii meeshii batroolka ku aadanaa ay tagtay reerkii ay u tagtay reerkii waxay ku yidhaahdeen meeshan ciddii numa degto baqaladoo nagala tag xoolahayagu dhulku noogu jiraya ayaga naga qaadanayo waxay u tagtay reerkii ay ka timi oo iyaga laftigoodu meeshu ay lahayd sibir reerkoodii markay u tagtay laftoodii baa laba u kala baxday qabiilkii laftoodii waxay ku yidhaahdeen adigu laftaasaa tahay marka dhulkan adigu malihide orada dhulka laftiina tag marka haddii maaragtay Soomaalidu badroolkay wada leedahay waxaynu wada leenahay waxaa jiri jiray berigii hore dadku markay faqiirka ahaayeen saxa weyn baa cuntada loogu soo ridi jiray marka waa la xishoon jiray oo ka ugu xooga weyn ee muu boobi jiray waxaan rajaynayaa barwaaqo iyo badrool iyo dad raasamaal dadka waynu ka bixinahay inaynaan kala boobine si cadaalada oo siman oo wanaagsan oo tiiraaya la'aan aynu u qaybsano aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi Soomaaliya ha dhawaato Soomaaliya ha midowdo Soomaalida ha israacdo qalbigeena ilaahay isu keen macaaneeyo nabada asalaamu calaykum شيخ فضيلة شيخ شيخ محمد إدريس وطنيته إنتاج إسلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.